asalaamu calaykum soo dhowaada walaalayaal ramadaan kariim waa mar kale iyo barnaamijkeennii ramadaanta allah inaga aqbalo acmaasha suuban iyo khayrka faraha badan haddaba daawada inta aanan bilaabin mowduuceena maanta hanaga ilaabin inaad subscribe noo saarto aynu ku noqono mowduuceennii in aynu isla wadaagno iskuna faa'iideyno waxayna farayso diinteenna islaamku waa shay muhiim ah maxaa yeelay waxyaabo kaloo badan waynu isla wadaagna maanta waxaan idin soo gudbinayaa hal xadiiskan waxaa laga wariyey abu hurayra allah ka raali noqday inuu yidhi rasuulka ilaahay qofka islaamka wanaagiisa waxaa ka mid ah in aanu faraha la gelin arrimaha aanu shaqo ku lahayn xadiiskani waa edbinta nafta iyo la xisaabtankeeda sababtoo ah waa dhab inay dadku badan yahay in ay wakhtigooda qaaliga ku lumiyaan waxaanay dani ugu jirin marka waa inuu qofku miisaamaa falkiisa iyo hadalkiisa waa inuu ogaadaa sida ay arrimuhu xidhiidh ula leeyihiin noloshiisa kadib wixii wax u taraya adduunkiisa iyo aakhiradiisa oo ku dhaqaaqo wixii aan faa'iido ugu jirinna uu iskaga tago maanta waxaa badanaysa inaynu ku mashquulno dad badan oo aan dani inoogu jirin inaynu maantaba ka sheekayno falaqayno sidaynu arkayno maanta waxa ka taagan baraha bulshada waa arrimo la yaab leh in la yiraahdo hebel baasna la yiri heblaasna lagu yiri waa wax aan faa'iido ugu jirin qofka maanta inuu ka sheekayo waxaan ugu la talin lahaa laga digtoonaado arrimahaas kala. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.